agaasimaha caafimaadka ee wasaaradda adeega bulshada ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ka bilaabay olole wacyigelin oo la xiriira dhinaca cudurka dabaysha. wariyaha Somali Channel Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag ayaa warkan magaalada Muqdisho inooga soo diray. cudurkan dabaysha oo isagu la shaaciyay inta la og yahay in gudaha dalka Soomaaliya iminka laga helay 170 kays, gobolka Banaadir oo kaliyana laga helay 70 kays, ayaa agaasinka caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada ee wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada xukuumadda Soomaaliya waxa ay qaybo kamid ah degmooyinka Muqdisho ka bilaabeen ololaha ka hortagga tallaalka cudurka dabaysha, iyadoona goobaha wacyigelinta ay sida xoogan kaga socota ay kamid tahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa iyagu waxa lagu wacyigelinayay inay la shaqeeyaan howlwadeenada ku howlan ololaha tallaalka dabaysha si looga hortago cudurka dabaysha. Ruqiyo Maxamuud Afrax madaxa MCH-ka degmada Boondheere ayaa ugu horeyn sheegtay inay ku dadaalayaan in qof waliba tallaalka dabaysha loogu geeyo goobta uu ku sugan yahay. waa barnaamij lagu abaabulayo dadweynaha ku nool deegaanka Boondheere si ay u qaataan labadaas dhibcood oo tallaalka waxaana la tallaalayaa ilaa qofka weyn 70 sano hadduu jiro 100 sano hadduu jiro guryaha ugu geynaynaa tallaalka in la siiyo ayaa laga rabaa ilmaha cawada dhashay waa la siinayaa. Cadar Cali Maxamed oo iyadu ka socotay agaasinka wacyigelinta abaabulka bulshada haweenka ee wasaaradda horumarinta adeega bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa iyaduna ka hadashay muhiimadda ka hortagga cudurka dabaysha. waxaan leeyahay cudurkan in laga hortago maanta wacyigelinta waxay ku saabsan tahay in cudurkan laga hortago cudurkan ma la cirib tiri karo laakiin waa laga hortagi karaa marka in ay iska talaalaan adinka maanta waxaan idin sheegnaa inaad gudbisiin aan rabnaa wacyigelinta waxa waaye in maxay ahayd daraseynta lagu noqdo gabadha gurigeeda u noqoto afarta cid oo ka soo horjeedo haddii ay dhahdo war cudurkan iska talaal waa dilaa cunugiyo ka dilin maxay ahayd adiga iska talaal ay dhahdo wacyigelinta ay ka mid tahay. Dr. Maxamed Cabdullaahi Yuusuf oo isna ka socday agaasinka caafimaadka ee wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada ayaa sharaxay qaabka iminka ololaha ka hortagga tallaalka cudurka dabaysha uu kaga soconayo qaybo kamid ah magaalada Muqdisho. maanta ayna la hadlayo uu ka furmay gobolka Banaadir gaar ahaan waxa ka hawlgelaya wax ka badan 700 oo tiim baa dhammaan degmooyinka ka shaqeynaya oo guri u tagi doona xaafadaha inta bari uu socdo tallaalku ilaa 26ka waxaa la doonayaa bulshooyinka marka inay runtii ay ka faa'iideystaan tallaalkan wuxuu kala duwan yahay kuwii hore waxaa la tallaali doonaa dhammaan da' kasta taa macnaheedu waxa weeye ma ku koobnaan doono oo kale sidii kuwii hore ciyaalka 10 sano ka yar ama ciyaalka 5 sano ka yar waxaa la tallaali doonaa da' kasta qof weyn iyo qof yar intaba tallaalka waa ay qaadan doonaan. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho. agaasimaha caafimaadka ee wasaaradda adeega bulshada ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ka bilaabay olole wacyigelin oo la xiriira dhinaca cudurka dabaysha. wariyaha Somali Channel Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag ayaa warkan magaalada Muqdisho inooga soo diray. cudurkan dabaysha oo isagu la shaaciyay inta la og yahay in gudaha dalka Soomaaliya iminka laga helay 170 kays, gobolka Banaadir oo kaliyana laga helay 70 kays, ayaa agaasinka caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada ee wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada xukuumadda Soomaaliya waxa ay qaybo kamid ah degmooyinka Muqdisho ka bilaabeen ololaha ka hortagga tallaalka cudurka dabaysha, iyadoona goobaha wacyigelinta ay sida xoogan kaga socota ay kamid tahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa iyagu waxa lagu wacyigelinayay inay la shaqeeyaan howlwadeenada ku howlan ololaha tallaalka dabaysha si looga hortago